أحد العلماء معاصر النول أي وحو صون قلي قصة عجيبة وعلي مقالة لا حلب يا سوريا كتالا أي واحد شرا نين حدادة حداد وطمالة تدكوي من أيان روار هبلو إلهي النوبري قفايق حنون سنية وار إلهي دنكو بريا أورتو بريا مركا كعل لسؤال الله كو بريا ومن عجيبة ومستجاب الدعوة مid kala imanaya waxba iga siiya wacaynka bil ilaahi bari haduu afka kala qaadaba adaaba arkay buur watumaale way abni buur wartalow ninkii waanu soo qastay buur waxaanu soo kaxaysay gaari waa nimid tan ninkii gurigaan ugu tagay waan wareystay teete xulimka ku warramay maaye barito subax igu kale mehradeed walku wax ku garaaco teete halkii baan u tagay meel gaar uu ila baxay wuxuu waxaan doonayaa horta qadiyadan waan qariyay buur laakiin maadaama nin sheekh tahay oo umada wacdiyo wuxuu sheega waxaan kuugu sheegaya in magacayga magaca sawjadaba qaris laakiin umada aad u sheegto talaabada aan gal waayo wax qiimo badan oo wax tar leh bali waran buur wuxuu yiri xaas baan guursaday intii sharciga ahayd baan ka eegay wajigeey labadii gacmood reerkiina waa ku qanacay waa gacanta la isu dhiibay waa la heshiiyay waa la meheriyay waa la qalgalay mar alla markaan qalgalay ayuunba waxaan ogaaday xaaskaniba inay uur leedahay xaraan ah oo waliba 7 bilooda markaasaan fajacay buur tala way igu ciirtay war maxaad yeeshaa subax caaw intaan waago baryin ma furtaa mee waaga ma la sugtaa ما يحل كلام مو راديسا وأنا جيبها في الشعيب وين رجل صلاة بنقله واسكت عايزتي واحد يقول صار عادي وروي أنت سوي لهاي صلاحية هن قف كنوا نقول كرا قف مردم بابه فالعكت هودك واي تتناول سكت وكذا صلاة دي بيجالو سكت وكذا سكت شقت تجي واسكت صو قدرت تجي كأنما إنا وحبة بتشري تتناول هبين مكان شونا هبين كده ما ورثنا في كوكلا هذا سيتري دنبيغا نوعاسان غلاي إلهينا وانوغا توبad keenay ilmahana xaraan buu ku calool galay ee waxaan sugayaa intuu dhalanayo toobadna suuxan ilaahay waanuga toobad keenay ee astur ilaahay ku asture way waan ku asturayaa mid iga ballan qaad ina dariiqa saxda ku dhaqmayso inta noloshaada ka hadhay oo aanad warwareeg yeelanayn kitaab jaamaca ku martibuur teetana waan sugay way gaadhay xilliga umulilayd teeta wuxuu yiri waxaan ugu yeeray gabadh magaalo kale aan ka doonay oo aan anigana garaneyn iyadana garaneyn baa ka umulisay teetana waa la hagaajiyay ilmihii waa laga shaqeeyay dhag waan soo qaaday buuri salaadii subax markii la galay ee lagu jiray ayaan soo qaaday hareeraha intaan iska eegay ayaan kadinka masaajidka dhinac uga yar dhigay salaadii maska galay waan ku yara raagay salaadii iyo digrigii markii dadkii ugu horeeyay degdeg ay soo baxeen shaqaaqdii ilmaha ayaa ku war heleen waa la isku kacayo ilmo yaro la soo tuuray baa jira halkan waa anna sidii nin xoogay baan iskaga habsaamay digrigii aankaasoo kii ugu dambeeyay soo baxaan noqday waa bal warraba maxaa jira ilmo yar baan halkan ka helayo dee waa kanoo halkan la soo dhigo waa ilmo kale aan xalaal ku dhalan oo talo yaa war ma haysan cid alla cid la og yahay oo lagu og yahay ma jirto bal sheekh aniga ma idigu ducayn aniga haysan doono korin doone aniga ma idigu ducayn hay wallahi hadana kugu ducayna khayr allah ducaa gabigi meel dadkii joogay wala igu duceeyay teetay waliba intoon qaaday baa saldhiga iyo maxkamadda ka soo qornay ilmaha yaroon helay oo masaajidka aanu ka helay in aniga la igu duceeyo oo anigu aan koriyo oo aan hayo la igu duceeyo teetana sidii baa la yeelay hooyadiisii baan ugu soo celiyay dadku waxay u haystaan ilmihii aan banaanka ka helay xaqiiqaduna waa maxay islaantana dhashay sidii baan u ilaalinayay u badbadan oo ilaahay iga siiyay gabadha lu khayr ay noqotay ilaahay fadligiisa wuxuu ilaahay iga dhigay kelmadan alla baryaba inaan dhaqso u helo xataa aanay iga raagin muxuu ninkaasi ku gaadhay asturaad iyo islaaxin iyo hagaajin haddii laakiin qofka oo xun oo xumaantii ku jira aad asturto taas iyadu taa maaha laakiin qofka mar qaldamay amaba
qalad hore ku jiro dib uga soo laabtay waa in la islaaxiyo waana shay aad iyo aad u muhiima laakiin xumaanta la qarsado sax maaha nebiguna wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam laa yadkhulu ljannata dayuus dayuuskuna waa ayo waa ka aladii yuqiru calaa ahli lkhabas ka ehelkiisa xumaanta u ogol inay raagaan inay meelaha maraan inay cid kale la hadlaan inay xijaab la'aan ku baxaan inay meelaha tagtagaan waa dayuusnimo wey dayuuskeen isku caynaana waa dhaqan xumada halka ugu dambaysa weeye